wararka ka imaanaya degmada Lughaya ee gobolka Nowdal waxay sheegayaan in iskoorimaad ka dhacay degmadaasi uu sababay dhimashada 2 qofood iyo dhaawaca qof kale sida uu saxaafadda u xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Nowdal Axmed Xadi Sidci kadib markii uu ka soo baxay shir uu magaaladan Boorama kula lahaa uqaasha waxgaradka iyo salaadiinta gobolkan waxaa jirta arrin incident ka dhacay saaka maxay ahayd Lughaya oo ahayd niman dhalinyaro oo saldhigad galay isku dayayna galaan askartii markaa joogtayna ay rasaas ay maaragtay ku rideen ninba ku dhintay labana waa dhaawac bay ahaayeen dhaawacina markii inta kadib ninba dhintay markaa 2 dhimasho iyo 1 dhaawac xaaladaasi gacanta lagu hayaa waxa kale oo ognahay in madaxweyne ku-xigeenkii ku sii socdo markaa deegaankaasi hawshaasi waxa la dhibaato ay u keentay hawlihii sidoodiiba u socdaan waxaan ku tala jiraa ilaahaydkiisa in beritoole doorashadu ay si fiican uga dhacdo gudoomiyaha oo ka hadlaya shaqaaqadaasi sababtay dhimashada iyo dhaawaca waxa hadaladiisa kamid ahaa sidoo kale Suldaan Ibraahim Dacri Yuusuf oo kamid ah salaadiinta gobolkan ayaa waxa uu baaq u diray dadka reer Lughaya waxaana hadaladiisa kamid ahaa waxaan 22 sano dhaqaynay maanta inaan ku ciyaarno ma reer Lughaya oo leeyahay dhibta dhacday saaka nabadgelyaha lagu soo dabaalo wada hadal hal galo hal la joojiyo ninka dhintana Allah u naxariisto kuwa dhaawacana Allah u caafiyaan leeyahay marka waxaan leeyahay reer Lughayana nabadgelyada hal la ilaaliyo Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama.